gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo garabka dhalinyarada xisbigaasi wadani ayaa saaka deeq lacag gaarsiiyay qoys tan oo ku nool koonfurta magaalada Hargeysa. Qoyskan iyo hore loogu baahiyay baraha bulshada ku wada xiriirdo ayaa la sheegay in carruurta qoyskaasi lacagta waxbarashada ay awoodi waayeen awgeed looga seeriyay iskuuladii waxbarasho. Aabaha qoyskan dhalay ayaa la sheegay inuu yahay askari ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland oo hadda ku sugan jiida hore ee bariya degan yihiin ciidanka qaranku. Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa halkaasi ka ballan qaaday inuu carruurtaasi dhaqaalahooda waxbarasho kafaalo qaadi doono ilaa intay gaarayaan waxbarashada heerka labaad ee sekondariga. Ugu horreyn waxaa goobtaasi dhaqaalaha lagu guddoonsiinayay qoyskaasi tanyarta ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Dhame. ku hadlaya afka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani guud iyo dibadba waxaanu damaanad qaadaynaa maanta oo aan ugu nimi gurigan in aanu hooyada culays ku haysto ka dulqaadno ubaxa ardayda dugsigii hoose dhexe awoodi kari waayeen inay lacagta iska bixiyaan ee laga soo eriyay. Soomaaliland waxa ka taagan duruufo fara badan hadday waxbarasho leedahay iyo hadday nolol kalaba leedahay. mudane madaxweyne haddii aad adigu xidhan tahay muraayadda greenka ah ee looda Australia ku daaqdo annagu waxaanu xidhannahay muraayadda abaarta iyo omaska iyo duruufaha Soomaaliland arkaysa. waxaanu xogogaal u nahay xaalado kuwan ka sii dhib badan oo ka cakiran inay ku xeeran yihiin muwaadiniinta qaranka Soomaaliland. Umar bin Khattab amiirul muuminiinku caweyskii iska daa hal kale markii ka gaadhay inuu umadiisa u damqaday wuxuu dhageysan jiray guryaha wax lagu karsaday kuwa lagu karsaday. innagana wax karsi daayo waxa lagu barakacay oo abaaraha ka soo kacay dibadda miyada marka aad ka tagto lagu barakacay madaxtooyada meel u jirta 100 mitir guriga madaxweynaha guri u jira 2 mitir oo state house-ka noloshaasi iyo duruufahaas iyo barakaca jiraan mas'uuliyadeeda waxa leh xukuumadda xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo ka tirsan garabka dhalinyarada xisbigaasi. waxa ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoo deeqda lacag guddoonsiiyay qoyskaasi. runtii waxaan u mahadnaqayaa Khalid Kulaali oo maanta suurta geliyay waxaan isleeyahay imaatinkiisii iyo warkii uu sameeyay ayaa suurta geliyay maanta inuu qoyska soo booqano. waxaan u mahadnaqayaa si buuxda garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo runtii annagana soo kiciyay iyaguna arintaas ay damaqday. waxay go'aansadeen iyagoo dhalinyaradu saa ka warqabtaan ba aan ahayn dad shaqeeya laakiin waxay go'aansadeen inay u gurmadaan ubaxa halkan taagtaagan ee dhalinyarada ah oo iskuuladii laga soo eriyay oo looga soo eriyay iskuulla markii hore lagu yiri waa bilaash oo lacag noqday. siyaasadda kulmiye way fiicnayd in iskuullada bilaash ka dhigto laakiin waxa nasiib darro ah in maanta iskuulladii aanay bilaash ahayn sida warbixinta halkan ay laga siiyay oo bariga 7,000 bay ahaan jirtay baa la yiri maantana waa 18,000. marka halka waxaad ka arkaysaa bilaashkii ka sokow in 3 jeer ay laabatay. marka taasi waxay muujinaysaa in siyaasaddii xisbiga kulmiye uu ku galay intiqaabka ama doorashada inaanay hirgelin ay fashilantay taasi tusaysaa. dhalinyarada waan u mahadnaqaynaa gurmadka ay soo gurmadeen. waxay ballan qaadeen qoyskan inay damaanad qaadayaan carruurtu ilaa intay ka gaarayaan dugsi sare. aad baan uga mahadnaqayaa arrintaas. waxaa jira boqolaal qoys kubanaan qoys aanay gaadhin aynu ka warqabno oo magaalada Hargeysa ku nool oo dhibkaas oo kala haysto. siyaasadda xukuumadda waxaan ku guurinaynaa in iskuullada siyaasaddii ay ku dhawaaqday lagu soo celiyo ardayda bilaash laga dhigo. Maxamed Aadan Said waa Bari TV magaalada Hargeysa.